Professor Ali Khalif Galeyd oo ka hadlayay munaasabada lagu daahfuray shirka labaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani oo ka dhacday magaalada Burco waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland isbedelada ka socda Geeska Afrika iyo qodobo kale. Ali Khalif Galeyd oo ugu horeyn ka hadlay isbedelada siyaasadeed iyo xasaradaha ka socda Geeska Afrika isla markaana barbar dhigaya halka ay Soomaaliland kaga jirto ama doorka ay ka qaadan karto Soomaaliland waxa uu yiri wax badan oo isbedel iyo kacdoon ka socda Geeska Afrika oo dhan inta af Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxaan qabaa oo aanan ka marin habaabayn in Soomaaliland door weyn ay ku leedahay horumarka iyo nabadda iyo midnimada inta af Soomaaliga ku hadasha waxaan qabaa inaan laga hadhi karaynin isbedelka iyo kacdoonka Geeska Afrika ka socda waxaana mudan hawshu maamul iyo dawlad iyo maamul jira maaha siyaasadda karkarinteeda iyo qeexideeda iyo aragti dheer oo laga sugayo waxa leh xisbiyada. Professor Ali Khalif Galeyd waxa kale oo ka hadlay hanaanka waxbarasho ee Soomaaliland ka jira isagoo oo arintaasina walaac ka muujiyay Soomaaliland maanta hortaala aniga aragtidayda waxa weeye arinta dhalinyarada iyo waxbarashada dalkan taala arinta dhalinyarada iyo haddaan si fiican looga fakirin meelaha wax laga baranayo ama iskuulaha ahaadeen ama jaamacadaha ahaadeen haddaan arrimaha laga fiirsan haddaan arrimaha la xidhiidhin maxaa suuqa looga baahan yahay maxaa looga baahan yahay kartida iyo aqoonta looga baahan yahay maxay tahay manhajyada iskuulada iyo jaamacadaha inay axsaabtu ka doodo in arrintaas si fiican looga doodo oo waxa ugu mudan la abaaro Somaliland kama duwana adduunweynaha waxa ka dhacaya Rabiic al-Arabi ama kacdoonkii dalalka Carabta ka dhacay waxa ugu weynaa dhalinyaro wax baratay oo aan shaqo loo hayn waxaana maqlayaa oo laguba faanfaanaa ilaa 6,000-7,000 oo arday yaa jaamacadaha Somaliland ka baxa intee baa shaqo loo hayaa intee baa leh xirfadii iyo aqoontii loo baahnaa oo ku soo bartay iskuulada iyo jaamacadaha. Gabagabadii Ali Khalif Galeyd khudbadiisan waxa uu kaga hadlay shaqooyinka ka taagan deegaamada gobolka Sanaag iyo tabashooyin siyaasadeed oo ka ulmaya gobolka Awdal waxa uu sheegay in haddii aan arrimahaasi wax laga qaban ay saameyn taban ku yeelanayaan geedi socodka nidaamka Soomaaliland iyo weliba xasiloonida gobolka. dhibaatooyin baa Soomaaliland ka socda maantana waaba maqlayay nin oday ah oo midhayn gudoomiyaha Awdal gobolka Awdala hadalka uu ku hadlayay hadal la dhayalsan karo maaha kuwa bari ka socda ceergaabo ka socda de waxaan u malaynayaa Soomaalida waxay tidhaahdeen tuke iyo xuusha midba war la weydiiyo waxa la yiri tukow goormaad wax dareenta markaan arko laba qof oo wada hadlaya xuushana waxay tiri waxaan wax dareemaa marka nabarku ama igu dhaco ama agtayda ku dhaco haddaan la dareemin haddaan garowshiya laga bixin haddaan loo dadaalin dhibaatooyinka la tilmaamayo wala Soomaaliland meel fog baa laga dooni doonaa